waxaana ka mid ah waxyaabaha aan ku baranay tababarkan sida loo aasaaso guddiga xasilinta iyo nabadda. waxaan kaloo baranay qaabka uu ku shaqeeyo maamulka aan baranay iyo weliba maamul wanaagga waxa uu yahay laftirkiisa aan baranay. waxyaabaha kaloo aan baranay waxaa ka mid ah nabad dhisidda waxa la yiraahdo iyo xalinta khilaafadyada iyadana waan ku baranay. waxaa kaloo ku baranay wada shaqaynta bulshada iyo booliska iyagana waan ku baranay. hadda in nool maskaxda nalaga dhaqo si nabadeyntii aan u gaarsiino dadkii annagana aan u gaarsiino sababta dadkii yaa gaarsiin kara marka odayaalkii iyo waxgaradkii in wax loo sheego sidee wax u qaldan yihiin sidee wax aan u saxeena horta dadkii in loo sheego marka annaka aan qaadano oo wax isla garanno annakana waxaan turjumaynaa shacabkii waxaan ku naqanaynaa shacabkii gadaal uu sheegaynaa si ay waxaan aan soo marnay gaamuray aan dadka ugu tirtirno. waxaa meesha noogu soo baxay waxyaabo badan oo markii hore aan waxba ka dhiganayn waxba aan ka ahayn maadaama seminaarkan uu ka kooban yahay dhowr iyo 20 qof haddana waxyaabaha laga hadlayo haddana isku mid aan ka nahay habeenkii iyo ragga iyo aan isku tala darsanayn maadaama talada qof aysan u gaar ahayn oo wax inaga dhaxeeyay ay yihiin aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxnay sababtoo ah haddana waxaan haysanaa buugaagtii nala siiyey waxaan jecelnahay wixii aan fahmi weyno haddana inaan ku noqono dib ugu noqono murajac buugga aan iskaga saxno. guddigan wuxuu ka kooban yahay maamulka degmada marka oo dhan iyo maamulada hoos yimaada. guddiga dhismahaan waxaa loo fiiriyey qaybaha ay ka kooban tahay dhammaan bulshada loo fiiriyey waxaa ku jirto culimada ganacsatada qayb ka ah ururka haweenka qayb ka ah waxaa qayb ka ah dhalinyarada laftirkooda qayb ayay ka yihiin. dhammaan qaybaha bulshada oo dhan waa ku wada midaysan yihiin. shaqooyinka ay qaban doonaanna waa shaqooyin aad ay ugu baahnayd degmada marka oo ay ka mid yihiin xasilinta iyo dhisidda bey'ad nabadeed. wax aad iyo aad baan ka faa'iiday waxaan ka faa'iiday daraseyntan ka faa'iiday waxaan ka faa'iiday xasilinta waxaan ka faa'iiday booliiska iyo shacabka si isku shaqeeyaan waxaan ka faa'iiday dadka cooperation si isku shaqeeyaan oo kalluumaysiga beeralayda si loo gudbiyo hay'adaha nabadgelyada tafaasiisha adig markaas ku soo wajahdo si loo gudbiyo. guddigan waxaan isleenahay in uu wax badan ka bedeli karo sababtoo ah guddigan wuxuu ka kooban yahay 5 qayb waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka waxaa ka mid ah culimaawidiinka waxaa ka mid ah ururada rayidka dhalinyarada waxaa ka mid ah ganacsatada waxaa ka mid ah haweenkii waxaan isleenahay intaasoo qof kooxada iskaashadaan meesha isbedel aad iyo aad u weyn baa ka dhici.